magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdilaahu waxaan hees dareen la wadaagay degmada Axmed Jab markaastan hadda qaaday waxay tahay anigu qosayso dareenkayga marka qofkii dhalinyarada wax dareema uu dareemi kara qof walba dhibkiisa uu ka turjumi kara ma dhawaan dhacda waxay u dhacday 2009 bishii 6 keedii bay ugu dhacday u daliishadeen marka wallahi kulli baa waxay ii daliishadeen ayaga baa ogaay anigu inaan dhalinyarada baan iska ardaya oo markaas xaafadiisa jooga halka degmada daynii laban deganaa laakiin waxa ka bari jiray degmadan oo hawlwadaag waxaan rabaa inaan Cabdiqaadir Sacbar asasiisan dhamaantiinba Instagram-kaygu igala soo xidhiidhay markaan arkay gacantiisii midig iyo gacantiisii iyo lugtiisii bidix oo markaan qiirooday iyo markii aan dareemay inaan xamar ay u baahan tahay nabad iyo nolol Sacbar asasiya gudoomiyaasha iyo xildhibaaniinta oo dhammaan waana ninkii aan Instagram-ka markuu igala soo xidhiidhay oo sheekooyinka iyo qisooyinka wixii ku dhacay oo wixii dijiswaadka magaaladan mar labaad Sacbar aksan walaalkiisa mid baan ogahay walaaltinimo sinjiyo dareen iyo Soomaalinimo xuduud ma laha waa ninkii baray Sacbar aksan Cabdiqaadir awana heestii ni qaadaya
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان bishaaro macadka imaamu naafid waxa uu qur-aanka kariimka kugu baraya hab casriya oo online ah adiga oo jooga hoygaaga iyo goobtaada shaqo bulshoy haddii barashada qur-aanka loo geli jiray safar hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta islaamka adiga oo jooga hoygaaga ama goobtaada shaqo dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka iyo culumta islaamka duruusta uu sida taxanaha u bixinayo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka iyo higaada culumta shareecada tarbiyada ubadka iyo luqadda carabiga qiraa'aadka qur-aanka kariimka iyo barashada salaada isqoristu waa ay socotaa ee wixii faahfaahinaya intaasi dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada ku muuqanaya mar kasta iyo meel kasta bulshoy ballanteenu waa macadka